بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وأنا من سلامين كستoo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Macallam channel. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe, haddii hore inala joogtay like, comment, share. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay kusoo dhaweynayna kusoo dhawow channelka walaasha Faayida Macallam channel. Marka maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxa karsan rabaa cabbage iyo spinach ama koosto saa u taqaano aan sameyn rabaa oo qaab casriyaysan oo sameyn rabaa oo fudud markastaba qof kasta uu karin karo. Waxaan jeclahay qaab fudud inaan wax u kariyo si aan waqti qaadanaynin oo insha Allah adan ku daaleynin. Marka asxaabteyda iyo waxaan kusoo diyaarsaday hal xabo basal, laba xabo oo baradho ah iyo jaf karoota waatan insha Allah waxa waaye black pepper waa filfil oo shiidan. waxaa rabtida ku cuni kartaa ugaaliya ku cuni kartaa waxa ku cuni kartaa marka insha Allah waxa ku cuni kartaa chapati ku cuni kartaa ceesha ku cuni kartaa jeela ku cuni kartaa waxa rabtida waxay diidaysa ma lahan. markaas saxaabay soo dhawaada yaanyadeena waatsa ilaa waxbo toon ah aan soo diyaarsay saliida ku karin lahayn insha Allah. asxaabteyda meel kasta oo joogtiin kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan iyo waji furan. marka qaabka u karsaneyno waa kasad basmir inuu jirto waa soo dhaqaneynaa maadaama aan suuq laga soo gaday si fiican la iskaga dhaqo waaye waan dhaqaneynaa hadda si fiican oo dhaqaneynaa. marka asxaabteyda daawasho waxaan ka faa'iideysay waxaan qaab xasriyaysan oo fudud oo samaysan doonaa asxaabta si fiican iskaga dhaqaynaa biyo si fiican iskaga dhaqno kastoo gacan lagu taabto jeermisay leeyihiin. marka si fiican iskaga dhaqdo waa marka suuq ka soo gatay ma sha Allah si fiican iskaga dhaqaynaa si fiican iskaga dhaqaynaa asxaabteyda soo dhawaada. marka insha Allah markasta waxaan isdhaho sheegadiye inta kugu xiran ama asxaabtaada ama walaalaha Soomaali in hala wadaag ayagana qaybto ayagana insha Allah ka faa'iideystaan aan isdhaha soo duuba. marka xalaalaad codsi ahayd codsigiina aan ka arko insha Allah commentiga biyaan saaranay biyo ku karraa waxa ku karraa waa biyaan saartay insha Allah biyo wax yar ay soo karkaraano marka waa ku darsaneynaa ku shubaneynaa waa kasa aan ku shubaneynaa ma sha Allah. insha Allah qaabkan oo samaysanay biyo ku darsanay daboolka saarayna waa inaan ka heli doontiin asxaabteyda waa inaan ka heli doontiin. marka soo dhawaada meeshan waxay u saaran qudaartii aan ku dalacana gooni biyo ma ku soo darsaday saliid hadda ku shubtay digsiga ibarkiis dabka saara u jeedin qaabka u dalacayo saliida noo soo karkarto oo u jeeda seenoo kareyso saliid weyn noo soo karkarto basasha ku shubaneynaa saliid basasha ma jecli inay zaid u madowaato korto wax yar bisaan karineynaa saliida markaasa waxaan karineynaa qudaartii ku shuban doonaa asxaabteyda yaanyadii ku darsaneynaa maantana yaanyadii ku darsanay qudaarta kala gadaal u dhiganeynaa wax yar yaanyada noo karsan yaanyadii qudaarta isla ma karaano yaanyada si quman ah u jabaysaa kaligeed markay tahay wax yar yaanyada aan ku jabsaneynaa mar rabo qudaarto dhan zaid inaan u jabiyo inay ka soo muuqataa rabaa. asxaabteyda soo dhawaada daawasho waxaan asxaabteyda daawashadan ugu dadaalo insha Allah asxaabta codsi waa taas. marka asxaabteyda waa kasa waa jabinaynaa si fiican
yaanyada u jajabinayna, laakiin qudaarta kale inay iga jajabto ma rabi. Koostada inay kasoo muuqataa rabaa insha Allah. Waan isla arki doonaa qaabka iga soo muuqan doonto. Waxyar aan jajabiyo marka. Yaanyadeenna waa tasaa way noo jajabtay. Marka waxaan ku darsanaynaa qudaarteena kala saan inay ahaataa rabaa. Marka inay saan ugu jajabto ma rabo. Qudaarta kale ku darsanaynaa. waa kasaa waxyar dabaq saarnaynaa. biyo yaraa ku darsaday. Asxaabta waa tasaa biyahaas yaraa ku darsaday. dabool yaraa saarnaa marka sugaa waxyaraa labada xabo toonta aan tumaan ku darsaday hadda. insha Allah waa daboolaa hadda. idaas dhexgali doonto oo jajabi doonto. daboolka saara insha Allah. waa cusbo. cusbada ma rabo inay iga badato. waxyar cusbo adi u qiyaaso qiyaastaada intaa rabtid. ani intaasaa qiyaastay marka waa kasaa waxay dhiman malahan. waa daboolana hadda waxyar inay soo karto waaye. jajabka idaa jajabi doonto. jajabka idaa iska jajabi doonto ma jecli in zaaid iga jajabto. xoogaan waa jajabina xoogaan waxaan rabaa inay kasoo muuqato. asxaabteyda soo dhawaada meel kasta oo joogtaan. waa koosto ama spinach oo si ii sheegadiyo oo dhib yar lagu kariyo waaye. waa kasaa hadda maxaa noo balanaa marka inaan ku darsano insha Allah. sidii hore aan idin sheegaba waxaan ku darsanaa filfil yaraa ku darsanaa. kadib waa isku daraa insha Allah. la socod wanaagsan asxaabta ila socda. maantana saanay diyaar noogu tahay. marka waxaan ku darsanaynaa alaabti kale noo diyaarsaneed aa ogeedeen insha Allah. waa kasaa alaabti kale. waatana alaabti kale. waa ujeedin biyo yaraa ku jiro. biyaha ma badno. baashiina way noo yaraatay way noo kartay. marka ma jecli in zaaid aan iskaga kariyo. ma fiicna zaaid in dhulka la dhigtid. marka maasha Allah waatana ujeedin qaabkana oo soo gadisnay biyahaas yaraa kasoo haray. biyaha yar qofkii rabo biyaha kor ugu darsan karaa. haddii kalena wuxuu ku samayn karaa wuu iska daadin karaa. marka asxaabteyda waa tasaa waxa dhiman malahan wixii dhan ku soo darsaday. haddii isku labo bisaa dhiman. labo bisaa dhiman. marka asxaabta waa kasaa isku qasanaynaa. soo dhawaada asxaabteyda. waa kasaa isku qasanay. ujeedin qaabkay nagu soo baxday diyaar waaye. ma u baahno karis kale. waxyaraan isku daboolaa asxaabteyda. marka waa isku soo noqonaynaa. asxaabta hadda diyaar ay noo tahay. marka haddii diyaar hadda waa diyaarsanaynaa. qaabkay nagu soo baxdaa arkaynaa insha Allah asxaabteyda.
qaabkan inoogu soo baxday asxaabteeda soo dhawaada. waatsa koostadii ama spinachka ay la soo kariseen waa ka asxaabta meel kasta oo joogtiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada. waxaan idinkaga tagi rabaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bye bye walaalayaal.